munaasabadani oo ay ku qalin jibinayeen arday tiradoodu gaarayso 300 ayaa waxaa soo qaban qaabisay jaamacadda Kooneyn ee magaalada Muqdisho. Ardaydan ayaa baratay culumta kala duwan kulliyadaha jaamacadda Kooneyn. Waxaa ka soo qayb galay munaasabadda wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, xildhibaano, waalidiin iyo maamulka jaamacadda Kooneyn. Waxaana munaasabadda ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Kooneyn, Professor Aadan Xaaji Xuseen, oo ka sheekeeyay taariikhda iyo halkii ay ka soo bilaabeen jaamacadda Kooneyn. jaamacadda Kooneyn waxaa la aasaasay 2013 waa Muqdisho laga aasaasay, laakiin fikirkeeda wuxuu bilowday waqtigaas ka hor muddo adiga 2010 waxaana bilaabay dhalinyaro Soomaaliyeed ama walaalo Soomaaliyeed ee jooga qurbaha iyo gudaha iska kaashaday. ujeedadooduna waxay ahayd inay ka qayb qaataan waxbarashada iyo horumarka dalka, sababtoo ah qof kasta mas'uuliyadda marka saaran ayagoo gudanaya ayaa waxay isku dayeen inay ummadooda wax u taraan. waxa kaliya inay isbideen inay u qaban karaan waxay noqotay inay ka caawiyaan waxbarashada. xildhibaan Cabdi Shiric oo ka hadlay munaasabadda ayaa u hambaliyay ardayda dhameysatay jaamacadda. meeshaan u socono waa garanaynaa, cidu nagama joojinayso. tanalka dabadiisa iftiin baanu aragnaa, cidna joojin karta male. in ardayda waalidiinta ay jireen xaaladaha adag ee dhibka badan aad wax ku barateen waa dareemi karaa, oo maxaa keenaya jidka aad aragteen halkaa in la yimaado ma sahlanayn maanta, laakiin rabitaanka ayaa idin keenay oo waa arrin aan mar kale iyadana ka hadli doono. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Jaabiri oo ka hadlay munaasabadda ayaa jaamacadda kaga mahadceliyay shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed una hambaliyay ardayda ka qalin jabinaysay. waxaan u mahadceliyo macallimiintii iyo maamulka jaamacadda Kooneyn oo ayagana runtii waqti badan soo geliyay ardayda quruxda badan maanta oo ay jaamacadda in xilligii ay joogeen maanta ay farxad ay ku faaneen. qaar ka mid ah ardayda qalin jabinaysay iyo waalidiintooda oo la hadlay Jubbaland TV ayaa dareenkooda farxadda ka warbixiyay. hambaliyo bogaadin uga diraya dhammaan walaalahayga isla qalin bedelanay ee ah ardayda Kooneyn family. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo guuleysano safarkeeni ahaa 4 sano oo intaan aynu soo wadnay. Ilaahay khayr iyo barwaaqo nagu dhameeyay, alxamdulillah. magacaygu waa Xasan Maxamed Xasan, midiyada waa public health midda caafimaadka jaamacadda Kooneyn. ardayda maanta qalin jabisa qayb ka ahay. dareenkayga maanta mid aan cabiri kara maahan, runtii waa maalin aad u weyn maanta iyo macallimiintayda intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. maanta oo bisha ay tahay 18 July 2018 waa maalintii aan qaadanay graduation ceremony-ga. waxaan ku faraxsanahay maanta bachelor degree-gayga inaan qaatay degree-gayga koowaad ee jaamacadda anoo ka baxay health science laboratory medical laboratory. waxaan rajaynayaa horumar wacan. waxaan sidoo kale u hambaleynayaa ardayda jaamacadda Kooneyn dhigato dhammaan. jaamacadda Kooneyn waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.